calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calansida media fadlan haddaan ugu cusubtahay subscribe saar gombeelka furada wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo axad ah qodobo xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah dad odayaal ah oo lagu xirxiray garbahaare iyo qorshaha Faad Yaasiin iyo farmaajo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya xaaladda garbahaare Cabdullaahi Cabdi Jaamac iyo xildhibaan Cabdullaahi Magan Bood ayaa labaduba waxaa laga hor istaagay saddexdii maalin la soo dhaafay safar ay ugu ambabixi lahaayeen garbahaare iyagoo ku sugan magaalada Muqdisho xildhibaan Bood ayaa ku eedeeyay taliyaha NISA Faad Yaasiin Xaaji Daahir inuu garbahaare ku xirxiray odayaal dhaqameed la doonayay in rooble ay la kulmaan xildhibaanka oo Muqdisho warbaahinta kula hadlay waxa uu sheegay in aysan aqbali karin awood sheegashada uu Faad Yaasiin ku dhaqmayo iyo xaaladda ka cusub gobolka Gedo waxa uu sheegay xildhibaan Bood in Cabdullaahi Jaamac looga yeeray Gedo si uu u noqdo musharax u taagan gudoomiyaha garbahaare oo odayaasha dhaqanka beeshiisa ay u igmadeen balse Cabdullaahi laga hor istaagay inuu ka dhoofo garoonka diyaaradaha aadan cad ee magaalada Muqdisho welina ay xamar ku xaniban yihiin ma hayno war ka soo baxay dhanka Faad Yaasiin oo ay kaga hadlayaan eedahaasi loo jeediyay ee ah inay odayaal ku xirxireen garbahaare si kastaba ha ahaatee ninkii dilaaga ahaa ee farmaajo qaraabada la ahaa Kulanjiis Mareexaan ayaa iminka garbahaare xoog ku haystay isla markaasina odayaasha ka soo horjeeda gabi ahaanba iminka lagu xirxiray Faad Yaasiin farmaajo Kulanjiis Mareexaan ayaa garbahaare ka wada awood sheegasho aad u culus isla markaasina waxa ay doonayaan in 16 kursi ee garbahaare gabi ahaanba ayaga soo xulaan dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa soo gaaray magaalada Buuloburte ee gobolka Hiiraan isla markaasina si weyn halkaas loogu soo dhaweeyay Yuusuf Dabageed oo hogaaminayay wafdi ay qayb ka yihiin xildhibaano wasiiro saraakiil ciidan iyo maamulka gobolka Hiiraan ayaa gaaray magaalada Buuloburte ujeedada socdaalka madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle ayaa la xiriira xarag jarka xerada taliska qaybta 27 laga furi doono gudaha degmadaasi sidoo kale Dabageed ayaa kulamo ku aadan xaaladda Buuloburte qaadan doono mas'uuliyiinta maamulka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan halkaasi madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle sidoo kale inta uu ku sugan yahay halkaasi ayaa waxa uu kormeeri doonaa xarumaha ciidamada iyo meelaha muhiimka ah ee magaaladaasi safarka Dabageed ayaa ku soo aadaya maalmo uun kadib markii ay ka sii dartay xiisadda ka taagneed beledweyne ee u dhaxaysay Hirshabeelle iyo generaalka awoodda badan ee duleedka magaalada beledweyne ku sugan ee Generaal Xuud generaalka oo dhawaan gudaha u galay magaalada ayaa maleeshiyaadkii iyo ciidanka ammaanka waxay isku rasaasayeen gudaha degmada beledweyne Hirshabeelle ayaa weli wajahaysa dhibaatooyin isbiirsaday sida khilaafka ka dhashay doorashada hoggaanka maamulkaasi iyo fatahaadaha webiga Shabeelle ee Jowhar si kastaba ha ahaatee Dabageed ayaa maalmahaani ku sugnaan doona degmada Buuloburte ee gobolka Hiiraan isla markaasina ku soo laaban doono magaalada beledweyne dhinaca kale ugu yaraan 3 diyaaradood oo ay kireysatay filla Soomaaliya ayaa saacadihii la soo dhaafay gaaray magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo halkaas oo ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo ku aadan 16 kursi ee aqalka hoose yaala degmadaasi sida ay dadka deegaanka u sheegeen warbaahinta diyaaradaha laga dejiyay Garbahaare ayaa siday odayaal dhaqameed maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa mid ka mid ah hoteelada magaalada caasimadda ee Muqdisho kuwaasi oo la sheegay inay taageersan yihiin madaxweynaha waqti uu ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida xogta sheegayso odayaasha dhaqanka ayaa lala kulansiiyay hoggaanka dhaqanka iyada oo ay wehliyaan saraakiil daabacsan filla Soomaaliya oo ku sugan magaalada Garbahaare xildhibaan hore Cabdullaahi Cabdulle Magan Bood oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in agaasimaha NISA Faad Yaasiin uu fashilinayo dadaalada uu wada ra'iisul wasaare Rooble shalayna uu ku xirxiray odayaal gobolkaasi Gedo sidoo hadalka u dhigay waxa uu sheegay in musharaxiin u raadinayay gudoomiyaha Garbahaare lagu celiyay magaalada Muqdisho diyaaradaha lagu wargeliyay inaysan ka qaadi karin magaalada Muqdisho arrintaani ayaa ku soo aadaysa xilli ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu shalay tagay magaalada Garbahaare waxaana lagu wadaa inuu kulamo la qaato odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta ku sugan deegaankaasi sidoo kale tallaabadani ayaa ku soo aadaysa xilli Jubbaland ay khamiistii u diiday la taliyaha doorashooyinka madaxweyne Farmaajo in uu ka dago Kismaayo kuna eedeysay in uu magaalada u waday hub sharci darro ah sida ay warka ku sheegeen cali cabdi raagi oo musharax u ah kursiga deegaan doorashadiisa tahay Kismaayo ayaa cambaareeyay falkaasi waxaana uu ku eedeeyay hoggaanka Jubbaland in ay ka soo horjeedaan musharaxnimadiisa madaxweynaha waqti uu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xooggiisa isugu geynaya sidii uu gacanta ugu soo dhigi lahaa 16 kursi ee taala Garbahaare wuxuuna horay ciidamo badan u geeyay gobolka Gedo si uu awood military ugu isticmaalo doorashada
fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media. xog xasaasi ah wararkii ugu dambeeyay qaraxii maanta ka dhacay magaalada muqdisho iyo taliyaha gobolka banaadir oo ka badbaaday taliyahani oo hore uga tirsanaa jir ururka al-shabaab booskiisa daqjonna lagu bedelay ayaa qarax culus ka badbaaday waxaa weli isa soo taraya macluumaadka laga helayo khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qarax ismiidaaminta ahaa oo maanta ka dhacay isgoyska banaadir ee magaalada muqdisho kaasoo lala eegtay taliyaha qaybta booliiska ee gobolka banaadir farxaan maxamuud qaroole oo maraya waddadaasi war qoraal ah oo ka soo baxay taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed ayaa looga hadlay qaraxaasi waxaana qoraalka lagu sheegay in taliyaha uu ka badbaaday qaraxaasi Farxaan ayaa lagu bedelay booskii oo ka baxay Saadaq John isla markaasina waxaa la xasuustaa in Farxaan uu taliyo u ahaa haramacadka magaalada Muqdisho isla markaasina horey ugu tirsanaa jiray ururka al-shabaab iminka ururka al-shabaab ayaa nin ayaga hore ugu tirsanaa jiray qarax ku weeraray sidoo kale taliyaha booliiska Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inuu jiro khasaare xoog leh oo ka dhashay qaraxaasi kaas oo leh dhimasho dhaawac iyo burbur intaba waxa uu yiri weerar argagixisadu soo maleegtay ayaa lagu soo weeraray gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa kaas oo lagu weeraray taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir taliyuhu wuu nabad qabaa walow uu jiro khasaare qaraxu ku reebay isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho argagixisadu cidna kama niyad jabin karto adeega ummadda loo haya ayaa lagu yiri warka ka soo baxay taliska booliiska sawirro iyo muuqaalo laga soo qaaday goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa muujinaya muraayadaha baabuurta uu qaraxa haleelay oo daadsan iyo burbur gaaray dhismaha ku yaala halkaasi isla markaasina dad badan ayaa halkaas ku geeriyooday inta la xaqiijiyay waxaa qaraxaani ku dhintay ugu yaraan 8 qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 10 kale sida wararka soo baxaya ay sheegayaan isgoyska Banaadir oo ka dhacay qaraxaasi ayaa muddo halkaasi xirnay ciidamada ayaana baaritaan xooggan halkaasi ka sameeyay si kastaba qaraxan ayaa qayb ka noqonaya falal ku ah ammaanka magaalada Muqdisho oo maalmihii u dambeeyay siyaabo kala duwan uga dhacay magaalada caasimada ee Muqdisho si kastaba ha ahaatee Farxaan Qaroole oo si dirqiya kaga badbaaday raggii uu asiga ka tirsanaa jiray isla markaasina tababarka xooggan uu ku soo qaatay dhinaca kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble oo ka degay galabta Garbaharey ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta gaaray magaalada Garbaharey ee xarunta gobolka Gedo waxaana si diiran u soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulka gobolkaasi socdaalka ra'iisul wasaaruhu ku yimid Garbaharey ayaa la xiriiray arrimaha hirgelinta doorashooyinka dib u heshiisiinta nabadgelyada iyo horumarinta deegaankaasi Roble ayaa dhagax dhigaya garoonka kubadda cagta ee degmada Garbaharey kaas oo qayb ka ahaa mashaariicda horumarineed ee xukuumadda ka hirgelinaysa gobolka Gedo sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta mudane Maxamed Xuseen Roble oo booqasho ugu gurgalaya baahiyaha gaarka ah ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee ku sugan Garbaharey ayaa ku bogaadiyay difaaca dalka iyo howlgallada ay ku beegsanayaan kooxda argagixisada safarka Roble ee Garbaharey ayaa yimid kadib markii uu soo gabagaboobay safarkii shaqo ee uu ku joogay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee Jubbaland ayaa sheegay in uu kormeerayo dhammaan magaalooyinka ay ku qabsoomayso doorashada mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Roble ayaa yiri safarkayga waxa uu ku saabsan yahay doorashooyinka iyo habraacooda Jubbaland waa deegaankii ugu horeeyay ee aan ka bilaabayo safarkaygaas waxaana mari doonaa dhammaan magaalooyinka kale ee ay ka dhacayso doorashooyinka sida Baydhabo marka Jowhar iyo Beledweyne Dhuusamareeb Gaalkacyo Garowe Boosaaso ayuu yiri Roble ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ayaa inta uu ku sugnaa Kismaayo waxa uu kulamo la qaatay odayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan isagoo sidoo kale ka qayb galay kulan golaha wasiirada ah ee heer dowlad goboleed ee Jubbaland dhagaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka